waa halyeygii u horreeyay ee Xamaas u sameeyay bam ay cadowgooda isaga dhiciyaan. waxa uu Gamaa u diiday gumeystaha Yuhuudda ee Israa'iil waxaanu naftiisa ku waayay sidii uu dadkiisa uga qaadi lahaa duliga ay Yuhuudi ku hayso. Waxaan maanta muuqaalkeena kaga warramaynaa daawade ninkii ugu horreeyay ee Xamaas bamba u sameeyay kaasoo ay taariikhda Falastiin xusto ahna mujaahid iyo shahiidkii ugu horreeyay ee naftiisa khatarta u geliyay xoreynta dalkiisa Falastiin iyo qaabkii uu ugu dambeyntii u shahiiday. ninkan waxa lagu magacaabaa Yaxya Cayaash. taariikhdu markay ku beegneyd 1966 ayaa waxa uu ku dhashay magaalada hadda loo yaqaan Rafaat. waxa uu ka dhashay qoys diinta aad ugu adag. aabihiina waxa uu ahaa beeraley, isna waxa uu ahaa arday xariif ah oo maskax badan oo isaga oo aad u da'yar ayaa uu quraanka xiftiyay. Yaxya waxa uu yaraantiisii ahaa wiil aad u degan, waxaanu arki jiray dhibaatada ay Yuhuudi ku hayso dadkiisa Falastiin. Yaxye markii uu dugsiga sare dhameeyay ee uu weliba dhibco sare ku baxay, waxa uu bilaabay mid ka mid ah jaamacadaha halkaas, waxaanu ku biiray cilmiga leydhka ama electricity. waxaanu jaamacadda ka qalin jabiyay sanadu markay ahayd 1985. waxaanu wax la baran jiray arday Israa'iiliyiin ah oo dalkiisa qasab lagu soo geliyay. Yaxyana waxa uu ahaa mid aad uga murugooda dadkiisa Falastiiniyiinta ah iyo dhibta ay mar walba Yuhuuddu kula kacaan. intaas kadib Yaxya waxa uu ku biiray ururka Xamaas, waxaanu ku caanbaxay naanaysta injineerka. waxaanu guursaday gabadh ay ilmaabti ahaayeen, waxaana uu Alle ku arsaaqay wiil iyo gabadh. waqtigaas uu Yaxya ururka Xamaas ku biiray waxa uu ahaa waqtigii aanay Xamaas haysanin hub, waqtigii ay dhammaantood dhagaxa ku dagaalgeli jireen. kadibna waxa uu Yaxya bilaabay inuu cilmiga chemistry-ga wax ka barto. kadibna waxa uu soo iibsaday maadooyin kiimikal ah oo uu ka soo iibsan jiray farmasiyada. waxaanu sameeyay dhowr bambo oo uu kartoomo ku xidhay. waxaanu u dhiibay ururkiisii Xamaas si ay cadowgooda ugu yaqaan. waxaanay bambadii koowaad ku qarxiyeen bas ay Yuhuudi ka buuxdo. waxaana ku nafayay 8 Yuhuud ah taariikhdu markay ahayd 1995. Yuhuudi ayaana baadhitaan bilaabay ay ku ogaanayaan ciddii ka dambeysay samaynta bambooyinkan. waxaanay ogaadeen Yaxya Cayaash inuu yahay ruuxii farsameeyay bambooyinkan. kadibna Yaxya waxa uu noqday ninka loogu raadinta badan yahay gumeystaha Israa'iil. Yaxyana waxa uu ka tagay reerkiisii iyo carruurtiisii, waxaanu u banbaxay hamigiisii ahaa Falastiin xor ah. sirdoonkii Yuhuudduna dabagal ayay ku wadaan, waxaanay tagayaan meel kasta oo ay ku tuhmaan. waxaanay dhibeen qoyskii uu Yaxya ka dhashay, waxaanay xidheen hooyadii Yaxya dhashay. Yaxyana waxa uu sii waday samaynta bambooyinka. waxaanay beegsan jireen Xamaasiyiintu basaska ay Yuhuuddu saaran tahay si ay xanuun u dareensiiyaan Yuhuudda. Yuhuudduna waxay howlgeliyeen sirdoonkoodii, waxaanay bilaabeen inay meel walba ka raadiyaan. Yaxyana waxa uu iskaga baxay caasimaddii Yuhuudda ee Tel Aviv, waxaanu tegay caasimadda Falastiin ee Gaza oo ah meel ay dad badani ku nool yihiin oo aan qofka dhaya lagu soo heli karin. waxaanay raadiyeen cid kasta oo Yaxya ka ag dhoweyd iyo cid kasta oo is yaqaaneen. waxaanay xoog ku geli jireen guryaha dadka, waxaanay baadheen meel kasta, buur, bannaan iyo godba. muddo 5 sano ah markii ay baadhitaan ku wadeen, ugu dambeyn waxay soo ogaadeen nin Yaxya ay saaxiib ahaayeen xilligii jaamacadda oo Yaxya gurigiisa marmar seexan jiray. ninkaas oo lagu magacaabi jiray Usaama Xamaad. Usaamana waxa uu deganaa magaalada Gaza. kadib markii ay xogtan ogaadeen sirdoonkii Yuhuuddu, waxay bilaabeen inay Usaame shaqaaleysiiyaan si ay ugu adeegsadaan dilka saaxiibkii Yaxye. laakiin markii ay baadheen xogta Usaame, waxay ogaadeen in Usaame laftiisu uu ka tirsan yahay ururka Xamaas. waxaanay ku fikireen cid kale oo qorshahan u fulisa. waxaanay soo heleen nin lagu magacaabo Kamaal, kaasoo ku soo noqnoqda guriga Usaame. Kamaalna waxa uu ahaa Usaame abtigii. Kamaalkaas ayayna ku qanceen oo u doorteen ruuxii u fulin lahaa qorshahooda. waanay shaqaaleysiiyeen, isna waa uu ogolaaday inuu arrintooda u fuliyo. Kamaalna lama yaqaan qaabka uu eeg yahay, sawirna lagama hayo iyo xogtoona aan ka ahayn Usaame abtigii. kadibna waxay bilaabeen qorshihii ay ku dili lahaayeen Yaxye. waxaanay sameeyeen taleefan ay dhexdiisa ku rakibeen bambo.
waxaanay taleefankii u soo dhiibeen Kamaal si uu ugu dhiibay Yaxye marka uu la kulmo. Yaxyena waxa uu ahaa mid mar walba qoyskiisa kala hadla taleefan line ah oo guriga Usaame yaalay. Yuhuudduna mar walba waa ay basaasi jireen, waxaanay dhegeysan jireen codkiisa oo ay barteen. Kadibna maalin maalmaha ka mid ah, Yaxye oo aabihii laynkii kala hadlaya ayaa ay si kas ah codkii iyo maqalkiiba u jareen. Kamaalna waxa uu ahaa mid taleefankii bambaysna la garab taagan. Yaxyena waxa uu ku dhahay, keen aabbahay kaga celiye taleefanka aad gacanta ku hayso. Kadibna waa ay ku qarxiyeen. Halkaas ayuuna ku shahiiday Yaxye, waxaana aaskiisii ka soo qayb galay 100,000 oo Falastiiniyiin ah. Sidaas ayuuna Yaxye ku noqday halyey ay taariikhdu xusto, waxaana hadda loogu magac daray gantaal wax burburiya oo ay Xamaas u isticmaasho gumeystaha Yuhuudda. Gantaalkaas oo loogu magac daray geesigii Falastiin u sameeyay hubka. Ninkii Kamaal ahaana waxa uu u guuray Israa'iil, waxaana loo sii diray Mareykanka, waxaana la sheegay in uu darxumooday kadib markii uu dilay halyeygii walaalkii ahaa ee dadkiisa badbaadinayay. Halkani waa Beachka Miraale ee muuqaalka like saar una sii share garee saaxiibadaada kale. Haddii aad nagu cusub tahay, wax badan ayaa ku dhaafay ee nagu soo biir. Mahadsanid.